Mariya ku-xigeenka dekedda magaalada Berbera Cabdilaahi Xasan Mataan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay dekedda magaalada Berbera ayaa waxa uu sheegay in shirkadda DP World ee maamusha dekedda magaalada Berbera ay tababar u diri doonto 18 kamid ah shaqaalaha isdiifa doorka loo yaqaano ee ka howlgala dekedda magaalada Berbera bishan fooda in ugu soo haysa kuwaas oo loo diri doono wadanka Mozambique laguna soo tababari doono habka loo maamulo laguna shaqeeyo wiishan cusub oo dekedda la keeni doono bartamaha bishan fooda in ugu soo haysa ku saabsan shaqaale DP World ay u dirayso training si ay u soo bartaan marka waxaan loo yaqaano mobile crane-ka ama muxuu ahaa bahalahan socda ee fadhiin wiishashkan dekedda wax laga rogo ee socda mobile crane-ka la yiraahdo ay ku soo baranayaan marka meesha la yiraahdo Mozambique saynu la socono DP World fursad bay siisay shaqaalaha halkan way ku training gareysay mar hore Thailand baa loo diray qaarkood waxa loo diri doonaa Emirateska shaqaalaha kale oo badan halkan lagu training gareeyay meelo iyaga badan baa jirta oo passportkeena aan laga qaadan jirin ay maxaa DP World inoo fududeysay ma jeclay wadamada inaan sheego laakiin ilaa 3 wadan oo Afrikaan iyo Carab isugu jira ayaa passportkeena lagu tagay oo markii hore aan lagu tagi jirin Mozambique baa training loogu dirayaa marka shaqaalahan 18 qof oo shaqaale ah weeyaan dadkaas shaqaalaha magaranaysa dekedda ka tirsan gaar ahaan Stephen Torreska badan ay ka tirsan yihiin dadka iyaga ah baasaboorka Soomaaliland wadamo fara badan baa aqoonsanay inuu ku tagnaa Mozambique waxa ka mid ah wadamada aan aqoonsanayn baasaboorka Soomaaliland insha Allah ta'ala iyaduna way aqoonsan doontaa marka si fursadaas aanay inooga lumin DP World cidna qasab kagama dhigin qofkii doonaya inuu soo barto xirfadda ee ku shaqeeyo waxa lagu yiri anagu istibar adigu iyo baasaboor doono qaarkood marka baasaboor dayaal arintaas markay dhacdo baasaboorkan wadamada aanu jiraanka nahay baa la adeegsadaa sida Soomaaliya, Djibouti iyo Ethiopia marka Soomaaliya waa wadan aanu jiraan nahay sida labada wadan oo kale loo adeegsado baasaboorkooda loo adeegsadaa waxay culays ku saartay ma jirto wax anagu arintaas aanu ku ogeyn markay arinta saas u dhacaysana runtii ma ay jirin madaxa shaqaalaha isdiifa doorka ee ka howlgala dekedda magaalada Berbera Ciise Cali Hangoolo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay shaqaalahaasi ay tagi doonaan wadamo ku yaala Afrika laguna soo tababari doono habka lagu shaqeeyo wiishanta wax lagu rogo ee dekedda magaalada Berbera waxa uu sidoo kale uu Ciise u jawaabay hadallo ka soo yeeray qaar ka mid ah xisbiyada mucaaridka ah ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland daraadeed waxa jira waxaan siyaasad laga deynay wax siyaasad laga dayo waxa weeyaan shaqaalaha waa naloo sheegay waa shaqaalihii istifadoorka ee ku wareegay October ku wareegay 2018 ku wareegay DP World kolkii hore madax banaan u shaqaysan jiray tababar aanay horu qabinna waa la siinayaa aad iyo aadna waan ugu qanacsanahay wishoolasha la dirina waa 18 saddex qaybood baa loo qaybinayaa imika waxa tagaysa 6 baa tagaysa lixina way ku xigaysaa lix kale way ku xigaysaa meesha la geenayna Dubayba maaha waa wadamada kale ee Afrikada galbeed ah waa faa'iido noo soo korodhay waana soo faa'iideysanayaan faa'iidana ugu jirto waxaan u maleynayaa sida ay hadlayso Faadimo Saciid in wax waliba dabranaadaan oo meel laba loo dhaqaaqay dadku ayaa hadalkeedu muuqda aan waxba ku sii tigaalmay hadalkeeda laakiin waxa cadeynayaa dadkaasi inay yihiin wishwalayaal 18 weeye kolba 6 baa tagaya lixda kale marka lixda kale tagay saasay si dhow weedaaranayaan waana wiishash aan hore uga shaqeyn jiray bay soo baranayaan shaqadu inuu wiisho leeyahay qasabna waxay noqotay wixii ay ku tagi karaan in loo helo Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera